warkalamaanay sax miyaa in funaanad dhar wixii ka dhaxeeyey 80% kaligeeda la siiyo soo cadaalad la'aan maryaheena dhexdooda ka bilaabatay maaha hansa kooya gataa wadda aan ku lugeeyo haddii aysan furayn oo jidadkiiba la goostay wareerkan iyo yaabka muddo dheerna hayo ku dhowaad cimrigeenna qarankeenna habsaansho dawlad aan ku arwaaxno xitaa maamul yaroo deegaankan inta joogta heshiis ay ku yihiin oo nabaday kala tuulo inaan soo dhisa weyno waa fadeexiya ceebe talamaan ku dhaqaaqno waa talo soo jeedinta bislo waxaa hore loo yidhi tusaale fiican waa tehe tawfiiqda tiirka muumudna tusaale fiican waa tehe tawfiiqda tiirka muumudna waxaa kaloo la yidhi inkastoo tuskii gugu helo tumaygu maasheeyo saxaraha habaas kama tirtiro mayay ku tiixa war gabar la yidhaahdo cumar waxay tidhi taalay maansaa leh tanana oday baa leh tigaad aqal baa leh taageero xaq baa leh tashuush been baa leh tacaddi dirir baa leh tallaal cudur baa leh tixana sheekaa leh tabasho gaajaa leh tuhunna cabsi baa leh taariikh diintaa leh tolla ay gablan baa leh tawaawac dhib baa leh takoor jahli baa leh tanaad nabad baa leh turriino rab baa leh tixraac shaki baa leh tashiil wax yar baa leh tulliin jeex baa leh tixgelin culimaa leh war cabdikuusa wanna waxaan maqli jiray aqal tiir la'aantii keligii ma taagmi haddaynaan istaakulayn tabar yeelan mayne waaqlo waxaad ka tagta ka tashada cadaawo isku tiirsanaada anna cabdulla waxaan maqli jiray tabantaabadii iyo isku tiirsanaan bay gacmu tamar ku yeeshaan warwar ma haysaan ninkii odaga ahaayoo ayaantan la dhahayay ma imaan karo iyo waa la celiyey alsayid fa'ad yaasiin maalin iska dhaafe hiira socod buu ku yimid madoon buu ku yimid Ethiopia Airways sheentay war ma qadar baa diyaarad military ku keentay war safarkii maqnaayoo dadka qaar sugayeen qof walbana si la ahaa wuxuu soo sadcaalay hadba surun ku celiyaan saakow xamar ku yimid nabad miyaadna leedihiin duufaan miyaa soo galbiyey war odagu markuu magaalada soo galay ee xoogga waddaniintu soo dhoweeyeen waa heesayaa la yidhi wuxuuna yidhi haddaan xuub dhacsaday sidii maska inta xunay xaasidka xamxamleeya xalxaluusha oo xamxamaarta xantuxay iga qaad weligii xamxamleeya war alsayid fahad yaasin heesilays makaakaana gobaya ka dari waliba eray hamasho obsuu habaarna taagdaruu habisaana baguraasana hataa haadiray ay agday hiiha ka erkorhe oo hadda mafahadaa fagaara soo istaagay oo la soo dhoweeyey oo ka hadlay adiga dhaadhacaysiin war fahad hadduu dhuuma jiray u malayn maayo inuu mar dambe dhuumanayo asagoo shir jiraa'id qabanaya waa la arkayaae calaa kulli xaal odagii waa yimid diyaarad militari iyo doon iyo waxaan aad ka hadlaysaanina ma keenine turkigu diyaarad ka soo raacay marka wariya dhammaantiis waynakaa haddaba waynakaa war anagu waxaan ku riyooday ayadoo intifaad xamatoy Facebook ku qorqortay dawladdu ruqsayday kadib markii Fahad yiri qofkii foota igu gaaday ee galiyay Facebooka ee fariin qoraalada sirta iyo faafshay xogahayga wali shaqada laga faasaxan maanta faraya war taageerayaasha Fahad waliba ereena yaa labi kara libaaha leerta jiife war madayow Fahad waa laandheere bannaan degay miyaa tiri war abwaan cabdiqays wuxuu yidhi xero bahal ku jira xoolo kuma dhaqmaan aryaa waaqlo cabdiqays waxa kale uu yidhi inta gabar xishootiyo wiil xariira kugu maqan hadda way ka badantee aakhirooy xaggeed naga xigtaa war walla weynay qaali guhaad igraan hooyadeed Fahad inuu yimidna loo sheegay war horta saxaafadda Fahad imaanshihiisa inay sheegaan ma loo fasaxay kollay raadiyo muqdisho lagama sii dayn war taageerayaasha CBB oo ku faanaya ayaaba kow faafiyey sirtii la qarihayay war waxay kale dhaheen sahay ku noolaa ninkii sahay ku noolaa iyo soorta dhaanshow saymaa galabta muuqdee siduu yeeli doona aryadaha samigay cabdullana arrintan wuxuu ka yidhi karbuuno nin wax kaysaha kaheeda waa kurbaysaya karbuuno nin wax kaysaha kaheeda waa kurbaysaya warwar ma haysiina dalka suudaan saakay afgambiyuu ka badbaaday ra'iisul wasaare cabdalla xamduug oo hadda ka hor la shaqay jiray dawladda Soomaaliyana wuxuu yidhi militariga xubno ka mid ah afgambiga samay rabay war ma madaxweyne farmaajo ka hortagay afgambiga war guddi cidda ka dambaysa soo baara ma loo magacaabay war ma muddo kororsi uu samaysan rabay war yaadaheen
dhigeen armay badbaado qaran ka dambaysay warniyo afrikaanna afgembi baan looga taag helay war afgembigii turkigii liska dayi dadweynaha kaariga hor jiifadeen war ma haysiine liiskii senatarada aqalka sare Soomaaliland waa la soo gudbiyey cabdi xaashi iyo mahdi guuleed baana ku wada saxiixan ra'iisul wasaare Rooblaana gacanta loo geliyey senatarka ugu horeeya ee la doortay ee Soomaaliland wuxuu noqday gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi Cabdullaahi war doorashada ma bilaabane goorma la doortay cabdi xaashi war cabdi xaashi doorashadii oo bilaaban haddii senatar loo sii doortay gudoomiyaha aqalka sarena mar labaad ma loo sii dooran doonaa war madaxweyne farmaajo haddii cabdi xaashi muuse suudi dhagay iyo dhagdheer fartaag iyo faroole ay ku soo laabteen ma madaxweynuhu u fadhiyaa war dib u soo laabashaba hadday bilaabatay yaa uga dhow madaxweynaha inuu soo laabto war cabdikuusow qoorqoor miyaad ka soo xigad maya lafta gareen war anigu cali guud laabaan la yaabaye yaa u dirsaday cadaaladdan uu samaynayo ilaa in asaga cadaalad laguma keenine war walla weynay dee cadaalad haddaad doonaysaan cali guud laawe u doorta madaxweyne isagaa cadaalad niigu dhowi war doorashada xibnaha aqalka sare ee Soomaaliland doorashada jawhar inaysan ka liidan doonin baan u malaynayaa sababtoo ah rag culus baa isku haya kuraasta waxaana ka mid ah kuraasta ugu adag kursiga ay ku tartamayaan wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac iyo gudoomiyihii hore maxkamadda sare Ibrahim Iidle Saleebaan waxaa kaloo adag kursi ay ku tartamayaan saddex barofesor oo kala ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar Professor Maxamed Maxamuud Allabari iyo Cabdiraxmaan Cismaan Cali waxaa kaloo adag kursiga ay ku tartamayaan Abwaan Axmed Colaad Digaale Qorane iyo Baashe Maxamed Ismaaciil war cabdikariin maxamed xasan iyo wasiirka warfaafinta dubbe kursigoodu sooma adka war dubbe burcaboosh cadda looga yaqaan ergo codaysana ma haynadee aryaadaha war ma haysiina beriga waxaa la furay xaruntii baarlamaanka tartanka suugaanta hoyga maasada Soomaaliyeedana qabahaaya hay'adda UNDP-na gacanay sii heehaa la yiri cidda guulaysatana iyadaa amaal mari haysaa la yiri hadda dadka gabayada derbiyada la fafadhiyow mudabilahow tartanku so'aha hayow idin dhaafin war xafladda maanta waxaa soo abaabulay oo soo agaasimay mawlid xujaale kow Ilyas Axmed Abuukar Umar Seer biyo xiriirinayay iyo Professor Bursaliid oo khudbad cajiib bahda suugaanta u jeediyay Abwaan Barre Maxamed Fiidowna waxa uu yiri haddii la idin dhihi jiray rag waa ragga hore hadalna waa inta uu yiri waa been raqba waa raggeeda fadhiga laga kaco niyadan ayaa la idinka jabinin war aniga xafladda hoyga maansada waxaan ka daawaday live-ka Abwaan Indhagelle war xafladdaas golaha abwaanada oo dhan ka qayb galay waxaana hogaaminayay Abwaan Xirsidoox Maxamed Weheliye aryaadaha idinkoon isdaalin hoyga maasada Soomaaliyeed suugaantiyo dhan u aruurihaya ha la yiri muga waxaan dhihi lahay oo suugaantii kala softaya loo soo sameeyay hal sanduuq suugaantii kala softaya loo soo sameeyay hal sanduuq Cabdullaah waxa kale la yiri turaabtiyo hadii uu dhigaa degada tuuriyeeyo adigoo lixaad toosan oo tamah lagu siiyay ina taagabtaa liidnimay kugu tiraysay war adoo tabta yeelaya la iska tiirshay adoo macallin tosh ku shiriyo helaya taageero aka gaabin tiimkiyo filka tuula kula yaale tawaadiyo ogow qalinka waa lagu tanaaday war ma haysaan labadii oday ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhaxdhaxaadin baa laga dhaxwadaha la yiri bila Soomaaliya ma ku yaraatay war diris aan sarka kala qaadaniya lama sarto asli fuulo salaantii oo nis deeran war ma afkii bas dhaafay war ilaahay u naxariistay Abwaan Gaariye wuxuu yiri hadday awr kala guurto la arkaa marka leeto inay ood ku kulmaane hadduu ur kala guuro soo amur culus maaha war wuxuu kala yiri Abwaan Gaariye nin daweer leeyahay dambi uu bar leeyahay inuu daaramo oo gabadh daaraanta buugta leh kulay boololadii hoos ku bukun korkar dhaahis wal mantaraw la kala tagay waa u taagnaa war wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur wuxuu yiri qoyskii garan tahliil waa banaan bixi karaan cid oo istaagi kartaana ma jirto war banaanbaha ba fasahay garan dumisu war salaadiintu oo banaanbaxayna bay yiraahdeen miyaa la fasaxay wareedhaaya markii la idin warramay maago jira dheer soo gashaane geel markii loo heysana goran yaad u heestaane dhaxdhaxaadinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa ka dhaxwada gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor war gudoomiyaha keedan maday Mursal sidii korantadii biyaagilanka jaaradayba madaxweynaha daadan hay may dhaxdhaxaad lan ku weeli war Axmed Qoorqoor asaga iyo ra'iisul wasaaraha hadda la heshiisiinaya baa la lahaaye gormuu dhaxdhaxaad noqday war wala weynay dhinac walba miyaa u daaqdiin Abwaan Hadraawi hadda kor waxa uu yiri hadba gees u carartay macarsaaye falanba hasha labada geel jecel noqotay gadeedii hadba gees u carartay war ma haysiine dekada raashin camal waxa uga soo dagay gaadiid dagaal oo dawladda Turkiga u keentay marka waxaan la yaabanahay maxaa khilaafka iyo gaadiidka dagaal isku soo aadiyay war intan mooshiidi
soomaalida gaadiid turka hata ka damba mambaahan injineeriha ku dhax baxeen oo baabuurta suubiyaayan baabuurkiin koreyni walibaa suubiyey injineer cabdulaahi ismaan daahiye oo walka baradii jaamacadda hormuud war abwaanguura wuxuu yidhi aqoon iyo dadaal baa aadmigii isdhaafsho aragtida ilaah baa addoommada ku beeree injineer waxaa tahay ummaddan anfacayo loo aayi doonee intaan ku asxaamayn rabbi kaa ammaan geli war injineerkii ma loo duceeyey war anigu waxaan la yaabay garoonkii haddeer loo dhisay buula burde in la yidhaahdo habeen madow iyadoo laga maqan yaha miina lagu xidha asaa la burburiyey wax maankay geli waayeyna naqatay kaaga darana dawlado shisheeyaa u dhisayaa la yidhi marka ma dadkaasaa wax loo qaban karaa war waxaan soomaali dhihi lahaa ilaahayna uga baryaa allah iyo wadaa taajiroon tala ku seegayne adigaa qofkaa taakulayntoosiyoo hagee adaa tabar u yeeloo ka dhiga tiirri xoog badane khilaaf taws xun nugu reebayaa taa ka noo dhigaye taageero noofida adaa dhaliyo tawfiiqe